الله والله 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 الله والله 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 الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إن شاء الله تبارك وتعالى عاوى درسنا وحين كقاعد دونا آية 18 كمدة من سورة الرعد. markaynu soo ururino culimada ay noo soo ururiyay suuradu waliba hadaf bay leedahay ama yoolka suurati racd muxuu yahay wallahu ta'ala a'lam. culimadu waxay noo soo naqliyaan waxa kamida waa in la ina baro oo aynaguna aynu barano xaqa iyo awoodiisa iyo baadilka iyo taagdarradiisa. مثلكي لينو شيغي بان inoogu dambeysay kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil. baadilku waa zabad waanu tagayaa, xaquna waa wax nafci leh oo baaqi noqonaya. waa sida biyaha daad xoortu dul martay daad xoortu way tagaysaa, waa baadilkii. biyihii nafciga lahaa wuu haraya, waa xaqii. waa sida dahabka iyo jawharka la dhalaalinayo dabka lagu dhalaalinayo ee zabad uu soo dul marayo, sabadkii dahabku uu tagayaa, dahabkiina uu baaqi noqonayaa. xaqii waa saas uu xoog u yahay, baadilkuna saas uu daciif u yahay oo u zuulaya. haddaba su'aasha meesha taallaa waxay tahay oo Ilaahay ina baraya laynana rabaa inaan raacno dadka xaqa raacay iyo sifaadkooda iyo fi aakhiro waxay leeyihiin, iyo dadka baadilka raacay iyo tilmaamahooda iyo ifi aakhiro waxay leeyihiin. waa labada qaybood, nin xaqa raacay intuu Ilaahay garansiiyay raacay iyo nin xaqi ka baydhay oo baadilkii raacay. qaala ta'ala Ilaahay wuxuu yiri marka qoladii xaqa raacday iyo qoladii baadilka raacday baa la inoo soo horeysiinaya labadiiba. للذين كوي وحا وسغناداي استجابوا الف ياسين تاك الف يعني سين تيتادا waxaad ka dhigtaa maxay ahayd siyaado. للذين كوي وحا وسغناداي استجابوا اي اجابوا اجيبي لربهم ربغود اجيبي حق بو ilaahay ugu baaqay, way rumeeyeen, way raaceen, way ku dhaqmeen. الحسنى waa usugnaatay tii wanaaga badnay. والله قول علماء أي كلين إفكنا وناك بكليهن آخرنا الحسنى وهي الجنة. وسورة يونس أي نقصها مرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كقادة نساء جنة كلين آخرة وجنة إفكنا وناك وحقي بالراعين إلهي بأجيب لقاها أفرع. والذين دولكي لم يستجيبوا أن يجوا لم يجيبوا أن أجيب له أي لربهم رب قال أن أجيب. باطل كيف الراعين حقي بكبير حق إلهي يقول باير والراعي وهي باطل كيف الراعين صدح لنا أبال بيليهن مركز صدح لنا جملة بهالكي خبرك كودا عيسى لو هدي أن اللهم أيه سبحان الله ما في الأرض أرض وحكو سبحان الله أردن لو هدي أن اللهم أيه سبحان الله ما في الأرض أرض وحكو سبحان حال جميعا دما انتهي ومثله هي انتهى إن لم يذه ومعه لصعته ومعيسى لافتدوا waxay ku iskaga furan lahaayeen bihi ay bil cadaabka iskaga furan lahaayeen. horta kuwaasi aakhira marka cadaabka loo geeyo waxay tamaniyi doonaan waa tamani ilaa ma haystaade in Ilaahay siin lahaa arlada muggeed iyo labanlaabkeed oo xoola ah oo naarta iskaga furtaan. ciyaadan billah waa takoobaad. talabaad ulaa'ika kuwa lahum waxa usugnaaday soo xisaabi xisaabteeda xun baa usugnaatay. marka Ilaahay la soo horjoojiyo man nuqisha bil hisaabi faqad halak ba xadiidka ku soo aroortay ninka xisaabta la niqaashtamo waa halaagsan. lahum waxa usugnaaday soo xisaabi xisaabteeda xun
mithqaala darra oo sayi'a laga dhaafi maayo wala soo hordhigaya markaas kitaabkiisa la hordhigaya ma li hada alkitab la yuqadiru saghiratan wala kabira markaas wixiiba lagu abaalinaya taasina waa tii laba ilaahay wuxuu u xisaabinayaa xisaabtay ka xun tahay markaas marka la xisaabiyo tamanigi socon maayo xisaabtii waa lagu adkeynaya aakhirkiina xaqay ku dambaynayaan wama'waahum hooygoodu jahannamo weeye wabi'sa waxaa xumaaday almihaadu firaashiyo gogolna hiya jahannama u xumaatay bal u fiirsa marka ninkii baadilka raacay saddexdaas lagugu soo ururiyay waxay iman doontaa maalin marka cadaab la geeyo ilaa Allah yaa iga furta arlada muggeed ba hadii la siiyo laba laabkeed uu dhigi lahaa mana haysto cadaabka inta laga xisaabta in yar laga fudaydin maayo nihaayadiisa iyo gabadhameysisuna waa jahannama meel la degana iyada oo xumaatay nacuudu billaahi minhu soo ururinta aayada sidoo quraanku uu koobsan yahay dadkii laba qaybood ka dhig man taba'a al-haqqa ilaahi kuwa xaq raacay ducaysan ilaahi xaq kuwa raacay naga yeel baadilkana Allah naga baydhsi ولذلك علي laga wariyaa inuu yiri i'raf al-haq ta'rif rijalahu war haqq baro ragiisa markaas aad garan maanta taasubka iska badan laakiin waa qaali in ilaahay xaqqa ku tuso kuwa raacana ka yeelo markaas waxa la ina barayaa mar labaad awsaafu ahli al-haq dadka xaqqa raaca tilmaamahooda وأوصاف أهل الباطل تدك باطل كراعة المامهوذا دغها أفر مركا قولada أهل الحق الله الرئيسينيا horta marka hore aayada hore waa la isbarbar dhigaya labada inaynaan isku khaldin laakiin aayadaasi waa ka horeysa awsaafta way ka horeysa qaala ta'ala wuxuu afaman mamid يعلم أكسون أنما أي أن الذي كي أنزل لغو سودتي إليك حقا لغو سودتي من ربك أو حق ربك لغو سودتي الحق إنه حق يهي أو رميي أو راعي كمن أي كمثل من مدميو لمد يهي هو إساقو أعمى كائن دبالي وحي لغو سودتي حق أها فكفر به وكقالوا به لماذا سمعسكم مدبا عالم يا جاهل عالم حقي برطي الرميو راعي ميو لمد يهي جاهل حقي قرن وايي وبينيو كبيري labadaas isku mid ma inma yatadhakkaru wuxun baa waana qaata ulul albaabi ashaabul uqul ku uqusha saliimka oo saaxiibka aayadaas waa hordhac labada qolo sifaadkoodiyo waa la isku ka barbardhigay waa nin wax garanaya oo aqligiisuna bad qabo oo xaqi arkay oo rumeeyo raacay lama mid aha nin aqligiisu buko xaqina ka indhabeelo garan waayay oo beeniyo ka bayray hadaas isku mid ma aqligaaga halkan waxa culimadu insha Allah qolada tafsiirka dib ay ugu noqon doontaan marar badan laakiin in la tilmaamo weeye xaq oo munazalka ah iyo aqliga oo saliimka ah labadaas waligood iskama hor yimaadaan وحيga منزلك يا عقلك بدقبا اسكما هور يمادا انما يتذكر اولو الالباب لكن لبدا اسك هور يبانيا waa maxay xaqa waxa ka hor yimaada caqliga aan buki saliimka ahayn ee buka nicmooyinka ilaahayna si way badan yihiin nicmada la nasiyo waxa kamid ah caqliga waa nicmo weyn waana maxallu takliif bay culimadu yiraahdaan qofku haduu waalan takliif ma saara xanuunada qaar baa dadka qaarkood ku soo dhashaano sacal baa af Carabida la yiraahdo Soomaaliga ma aqaano waa caruurta qaar baa ku dhalata markuu dhasho maskaxda oo aan korsiimadii ka xumaatay baa dhalanaya ayuu dhalanayaa maskaxdii oo korsiimadii ka xumaatay marka qaarkood halka ma dhaafayso halka ay marayso ma dhaafayso idan la taklifa calay hadalka soo bixi maayo waxba garan maayo لكن إلهي مركو عقلي نسيي ونعمة وين تكليفنا يسقى إنه صار لكن عقلي محل الرباع إن العقل حقك قرطه إنما يتذكر
ulul albaab hada xaqi ku garan weydeed meel kale oo la kacdo imarka waxa iska badan ba dadka aqliga ka horeysiinaya xaq sharciga waxyigii bay ka horeysiinayaan aqliga markaasay lumayaan nin hadaad aragto aqliga ka hormariya waxyiga خلاص baadi u daa baadilkii buu raacay xaq uu ka baydhay حق ومحي إن العقل جاء دب فريسي وحي جاي حقا أو طبقشة أنت هدي لقاه له إلهي سبحانه وتعالى وتكبد بالي إلهي نكو بدبالها ينغيه له سورة آد وحينا بريسا حقا يا باطلك كذلك يضرب الله الحق والباطل واي بالقولة دي هذا الحق قرتين راعي أو سافته ذي إيه مركب وحي الأهضان أولي الألباب الذين اسم موصول كاتم لدى الدبال لقب بلاوي صدح عرابات بأوغو ظاهر سن إنه نكدقنا مبتدئ خبر كيس ودعي دونه أولئك صوص عطا ودعي دونه ومبتدئ جملة استئنافية على الإرادة وجملة بلاوة لبا إعرابة اللبات إنه نبدل كدقنا وأولي الألباب بدل غير له إنما يتذكر وحقوا أن تقاته أولي الألباب وأولي الألباب أي نكبدل له إيه اسم موصول كأنه صفة كدقنا إن شاء الله إعراباتك أنت بدوات كراعي وكتبتي واضحة يستطيع وحين أنت دورنا إن عاوى إعرابة النعتقة إنما يتذكر وحقوا نقاطا أولو الألباب أصحاب العقول كو عقوش الصحيحة سليم كاله أو من هم يا ربنا واعيو من هم واعيو صفه لنا نوصفه يا ربنا صفه لنا لا بأي نوصفين وحوي كوا أولو الألباب الذين واكوي نعتكر الذين وادولك يوفون فلينيا سدات صفات رسانيسا سدات صفات آياتك صفة الأولى صفة كوبان تلمانت كوبان الذين وادولك يوفون فلينيا بعهد الله اللب اللمديس فلينيا اللب اللمديس ووحو فري وحو كريبي iyo xuquuqdii cibaadka intaba iyo waxay nadar ku galeen ahdi oo dhan way fulinayaan wala yanquduna burin maayaan almithaqa ballamihi la adkeeyay jumladan waxay culimadu u badan yihiin i'raabaad badan baa ku sugan waxaynu raacaynaa i'raabta odhanaysa wa atful khas ala al'am oo mithaqu wuxuu ku dhex jira ahdiga hore wala yanquduna uhuud oo dhan way fulinayaan عهودا وحا كميدا مواثيق با كميدا قار دار لغو ادكيا كميدا ولا ينقضون مبرينيان عهد او دن مبرينيان غار اهان مواثيق ده مبرينيان waxay ballan daar ku galeen mabrinayaan marka taas waa sifatul koowa ahdi oo dhan oo Allah ay la galeen way fulinayaan gaar ahaan ahdiga miisaaq lehna mabrinayaan ahdi oo dhan mabrinayaan ka miisaaq lehna mabrinayaan الأولى صفة كوبا صفة اللبات والذين ودولك يصلون حريرني ما شيء حريرني أمر الله الله أمري به سجى أن يصلى ما جباء أمري أن يصلى إلا حريريه وصفة اللبات وحال الله وحي إلهي أمري إلا حريريه وحريرني وحكم إذا مركا صلة الأرحام في قرابة حريرنتيدي وحكم إذا مساكين تحريرنتيدي وحكم إذا أيتام تحريرنتيدي وحكم إذا ضعفاء حريرنتيدي وحال الله وحي سلك هاقباه وحريرني إلهي أمرين حريري وصفة اللبا صفة صدحات ويخشون وحي كبقنيان ربهم بي كبقنيان صفة أفراد ويخافون وحي كبقنيان سوء الحساب حساب تيدحن ويكبقنيان علماء way kala duwan halkan maadaama laba sifo laga dhigay khashiyada waxay ilaahdaan waxa uu Ilaahay amray oo dhan iyo wuxuu ka reebay waxay ka baqanayaan awaamirtana inay wax ka dhimaan nawaahidana inay ku dhacaan ويخشون marka nawaahida way ka joogsanayaan khawfan min Allah khashiya Allah ay ka baqanayaan awaamirtana way taam yeelayaan khashiya Allah ay ka baqanayaan
خوفكم محويهاي ويخافون وحي كبقنيان سؤال حسابتي ذكر وخوفكم وحا الله سعود بإليهين التعظيم والجلال إله بي وينينيان الله ويتعظيمينيان قف كستاء صفدا له وأولو الألباب ككمده إن إلهي لهرتوشين يقين سيهاي تولو حساب حن ملقوا حسابين maxaa ka dhalanaya markaa khashiyada waxa ka dhalanaya bay yiraahdeen inuu awaamirtii fuliyo nawaahidina ka tago khawful xisaabna maxaa ka baqanaya ilaahay buu weyneynaya ta'ziim jalaalna uu ku jira ilaahay baa lagu hor joojin doonaa buu ka baqaya waxa iyadana ka dhalanaya inuu is xisaabiyo qabla al xisaab inta la xisaabi uu is xisaabinaya qabla al xisaab xisaabta inta la geyn ayuu isagu is xisaabinaya إلهي عظمتيسي يا جلالكيسي بهر يال ولبا صفو iyaguna qaaliya khashiyada waxa ka dhalanaya awaamirta fulinteedii iyo nawaahida ka joogsigeedii خوفكنا waxa ka dhalanaya inuu is xisaabiyo oo cadamadii Ilaahay iyo jalaalkiisa inuu Allah Ilaahay waxa la hortagi wasifadii afraad صفدي شناد والذين وادولكي صبروا صبري والذين وادولكي صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم ربي قود وجهي سيغو ضلبيا هر إلهي بي صبريا وصدح ذي قيبوذي صبرك والذين واكوي صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم ربي قود وجهي سيغو ربا waxay raadaan culimadu diintu waxay ku soo ururtaa saddex ficl al-ma'mur wa tark al-mahdhur wa sabr 'ala al-maqdur ficl al-ma'mur wixii lagu faray fal oo samee tark al-mahdhur wixii laga reebay ka tag masaa'ib haday kugu dhacdo wa sabr 'ala al-maqdur wixii qadar ku sabr إذن عبادة سكلا ودقوا لبا لغو سو أروريا الصبر والشكر ويصبريان والصبر كي صدح ذي قيوض بو إلي منيا هر إلهي بو إلي منيا ضاعة ويكو صبريا معصدنا ويكو صبريا مصائبتنا ويكو صبريا أشكتون ماي ولذلك بعد قمة الصبر ويتوغا وعبادة قمة ذي بي إمس الصفات هاي شن صفات مريسة من هو البحث أدقار ولا بحضه كتبته ويكوفة فاهنيسة صفدي لحاد والذين وكوي أقاموا أوغي الصلاة صلاتنا أوغي الصفدي لحاد صفدي شنا تضبات والذين واكوي أنفقوا بحيي مما رزقناهم بركمذا وحانكو أرزاقني سرا سقر سودية وعلانية يسمو قطع waxay culimadu ku jamciyaan way badan yihiin aqwaashiye sirran wa sadaqadi tadawuca ahayd wa alaniyatan wa ti waajibka ahayd waayo waxay dhahdaan tawaajibka ah ee zakada ay kamid tahay in iyadoo lagu arkayo bixisaa wacan si aan loo oran hebel zakada ma bixiyo sadaqada tadawucaahana waxay ku wanaagsan tahay inaad qariso si aad u noqoto sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu waxaad midigta ku bixinaysaa labadaas aad kala qarinaysaa iska daa makhluuq kale inuu ku ogaade midig iyo bixi marka sadaqada tadawucna waxay ku wanaagsan tahay qarinta sadaqada waajibkiina waxay ku wacan tahay muujinta oo maxaa loo muujinayaa asbaabaha loo muujinayo waxa kamid ah koow in lagu daydo laba naftaada inaad tuhmada ka fogeyso dadkana aad uswa u noqoto marka waa sifadii toddobaad walladina wa kuwi anfaqu bixiyay mimma razaqnahum barkamida waxaan ku arsaaqnay sirran si hoose waa sadaqadii tadawucayd wa alaniyatan si koraysa waa sadaqadii marka waajibka ahayd waa kuwi bixinay
وها هي صفة الأخيرة صفة سيدات قدام بيسي واقوان ويدرؤون أي والذين واكوا يدرؤون كدفاعي بالحسنة توناكسا السيئة تحمبي كدفاعيا هذه العايو يقو حعاي مايا هذه لقويو يقو يحريرنيا هذه لحميو يقو يحناجنيا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم marka sifaadka ulul albaabiya sifaadkooda waa kuwee waa sideeda sifaad hada lagu sheegay markaas ilaahay ulaa'ika kuwa almawsuufuna bima dhukir lagu sifeeyay waxa la soo sheegay ulaa'ika almawsuufuna bima dhukir kuwa lagu sifeeyay waxa lagu soo sheegay lahum waxay leeyihiin uqbadaar دارت عربتيدا وناكسن اي عاقبه المحبومه عربت وناكسن ولذلك قولك ugu wacan waa qowlka labadaba jamcinaya daartan daar dunya wa daar al-aakhirah labadaba way noqon kartaa daar dunya cirib wanaagsan bay kulleeyeen daar al-aakhirahna cirib wanaagsan bay kulleeyeen daar dunya ciribta ugu wanaagsan waa maxay in ilaahay thabaat intu ku siiyo adoo muumino xaqi ku sugan aad ka baxdo allah wanaagsan adoo xaqi ku sugan in naftu ka baxdo آخرنا إلى تكتو هذا حقيقة سوغان جنة دكتو وعقب الدار مركز على السفية عقب الدار بالله هذا تي آخره وأنت بدن شريعة أن يديتينه دار الدنيا ونسي مرينا لا يدا لفت هذا حلين منه وإنه هل كذا إنه دقينا لكن محل الربع يول باكر إنه لا شو كسر توا جنة يول كها كسر كيسين يول كمال سو كها صادقين يول كوا جنة marka inaynan adduunyada yool ka dhigan laakiin daarul aakhirah ay yool ka dhigan marka saa ilaahay jannatu adnin daarti uqbadi baad u baahan tafsiir Soomaha hiya uqbad daari hiya waxa weeye jannatu adnin nagaadi jannadeed waa meelan waligeed laga guuray bal inaad ka guurta daaye niyadaada guuriso ku soo dhici mayso nimanka adduunyada waa inaga arkay marba meel baynu u geedinahay dhaqankeen inaga waa geedi ilaa Yurub baynu u tahriibaynaa hatta markay Yurub galaan kuwa la sheegay dhaqanka la sheegay marba dal bay qabanayaan ma leedo nagaada iyaga laftooda kuma aha jannada hadaad mar qura madaxa la gasho ilaahay ahli jannaha inaga yeelo iska daa inaad guurtee wallahi niyadaada ku soo dhici mayso la yabquna anha hiwala digar rugasho dooni maayaan bay ilaahay أي هي دار عقبة دار هي وحوي جنات عدن ونقادق جلديس يدخلونها يدخلونها حال أيه يدخلونها ضمير كان جنة وعلي جنة قار قلدونا جنة عدن قار قلدونا هم إيجا ومن صلح يعدي وناكسناتا ومن آبائهم آبياشوت كمذا وصلاح سمحا كوكا إيمانك كا ومن أي هم إيجا قلدونا ومن يعدي صلاح وناكسناتا ومن آبائهم آبياشوت كمذا علماء waxay leen aabihii baa la sheegay hooyadiina waa tabaco way la socota aabihii hooyadii awowgii ayeydii wixii raacay ee cuduriyadooda ah waa laga daba geynaya ilaa la yiraahdo ka ugu darajo sareeya halkuu dago ayaa dhamaantood la dajinay ilaahay ahal jannaha inaga yeelo وأسواجهم حاسس كودي أي الدنيا ذا كقبان علماء فقه شرط بيقولنا وهذا كجد برد ما طينا وهي في عصمته يدعو عصمته سقصها وعن كلا دعان جورسن وذرياتهم يوبت كودي عرور تودي أبا والد كود باللو كينيا حاسس كودي عصمته هذا كشري باللو كينيا وبت كودي باللو كينيا gurigaasay degayaan waa jannatu cadn waxa u dambeeya ee ay la kulmayaan waxa kamida madaxweyne kasta qof kasta gaarkiisu u yahay ilaahay agtiisa waa wafti qaali oo la soo dhaweynay malaa'ikti baa soo dhaweynaysa والملائكة ملائكتي يدخلون ويسوقليان عليهم كوا مؤمنين تعا عقب الدار الدقي بيسوقليان من كل باب الباب دمانتي لما تفسير بعلماء الدورتان إن قريتان كاسية هاي شنظة تسديد الباب بين هذا هاي يدخلون ويسوقليان عليهم ملائكتي ويسوقليس عليهم مؤمنين من كل باب الباب دمانتي ومن أبواب الجنة وسديد الباب
iyo tafsiirka labaad oo jannada markay soo galaan qof waliba qusuur buu leeyahay maaha hal qasri waa qusuur kala jaajada yadkhuluuna way u soo galayaan hay calayhim muuminiintii bay u soo galayaan malaa'iktu min kulli baabin albaab kasto min abwaabi qusuurihim qusuurtooda albaabadooda kamida maxay leeyihiin iyaga oo hadalkan kula salaamun calaykum nabadi korkiina ha ahaato salaamun calaykum nabadi korkiina ha ahaato bimaa sabartum maada master baad ka dhigaysaa bacdana waa sababiya bimaa sabartum ay bisababi sabrikum sabirkiina awgi allah halkaa waxaa ku soo gaadheen sabirka salaamun calaykum guryaha maanta haddaydaan soo sabrin maydaan degteen daacadii bay ku sabreen macsidii bay ka samreen masaa'ibtii bay u samreen بما صبرتم أي بسبب صبركم صبركين أوجه فنعم عقب الدار فنعم وحوناك سناتي عقب الدار دار عربتين أي عقباكم عربتينه اسم كي يعني مدح ونوحت فيها فنعم عقب الدار دار عربتين باوناك سناتي أي عقباكم عربتين إلهي وحين مكبر ينا إنه أهل الجنة إنجي له توفيق ذا أو صافتنا إنه وافشيه قفوا إنه إنه إذا وحل الربع أنت القرآن كمل ولا بحر إما كرتي دبعتها علماء الشيعان دينونا إنه واقعين كل احتر روحة كم إذا قرآنكم حين نور هذين ويمكن كنت تدبرينه وحين نور هذين لا يوحى كم إذا عادات كأين عادي سنين كل احتر باينة مشغولين إياه maxaa kamid caadaadkaasi wax allaala wax kasta oo aad caado ka dhigataa aday ceeb kugu yihiin maqaaxida fadhigeeda kamid halka ka daalimayaan dadku maanta oo dhan way hadlayaan saacad casarka haduu fadhiisto ilaa maqribku fadhiyo salaadu soo galaya uu ku noqonaya cishaayigu fadhiyo uu ka soo noqonaya cishaayiga dabadiibu ku noqonaya uu ka rawaxaya salaada haduu imaamku in yar oo qiraa'ah oo quraan akhriyo dheereeyana sheekh naga daawad nagu dheereysay muxuu qalbigii inoo raadin waaye ee caadadu ceebtaas ay leedahay maqaaxidana inaad u sabirto waa caado salaadana inaad u sabri weydaa waa caado بينما هذا صحابة تصالوا سقاط سي صلاة أبو صبر جرين صحابي رسولك أنتو كود ضيضي صحابي رسولك يستاجي مركز صلاة افتتح البقرة رسولك بقرو فرفرطي مركز أنا سيدويري وحكوتشوك سنة يا آيات البقرة ودمي سأسير يدور دمينيا فافتتح النساء نساء فرفرتي سانسر ميل بو كجوجيني حتى هممت بامر سوبور الا ان ارن حنكو معاد كو هميده انا كبخ ماشا دب كبخ آل عمران بو هدنا اخري ودمي هل قيام با رسولك وحو اخري صدخدي ugu dhaadheera suuradihii diwaalka وهل قيام ورمانت ما يغيا awoodaya inaynu baqara har ragca ku tukano بقي بين وقت كيسان لعنة ولذلك علماء آد يا آد وحي وجهاد لان تأثير القرآن كصبوت كل إيمانية وحى كم ذا عاديسي وعد نفط كترت هذا موبايل بالغو مشغول سي تلفزيون بالغو مشغول سي BBC بالغو مشغول سي برب الشالغو مشغول سي وحى هل مر لقد دالي مايو قرآن كينا بالآخرين مايو إلهي هاي نوافجيه سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فريق سوا فريقي كوباد حق الراعي يا اوصافتودي كوي كسو هرجيده ولا سو ururinayaa قال تعالى الى يحل والذين دولك ينقضون برناي عهد الله الا بلنتيسا من بعد ميثاقه ميثاق سنتي لا ادكايه كدب كوي برنايي ويقضعون غوينيي ما شيء امر الله الا فري به اسغا ما او امر ان يصل ان خيريو ويفسدون كوي فسهادني في الارض دولك اولئك كواسي لهم وحا سغناتي اللعنه لعنت با سغناتي اولئك كوا لهم وحا سغناتي اللعنه لعنت ومحي وطرد وطير الهي ان حريستي سكيريه ولهم وحي اليهين سوء الدار دار تحن اي اليهين وهي النار وانا النار ولا سوريه يغا او سافتود maxaa laga faafaahin halka kuwii hore balanta ka fulinayeen miisaaqana ay aanay burinaynin kuwana waa bil cagsi
halkay kuwii hore wixii ilaahay amray xidhiidhinayeen kuwana waa bilcagsi wax walba way jarayaan soo duuduubo waxaan fasahaad ahayn ka shaqayn maayaan waxaan fasahaad ahayn ka shaqayn maayaan maxaad sugi marka waa baadilkii buu raacay baadilkii baa halkaa maray ulaa'ika lahum lacna ilaahay kuwa siduu ibliis u nacdalay naxariis ilaahay ka heli maayaan raalli ahaansho ka heli maayaan caynu ra'fa wa raxma ku eegi maayo عين الرأفة والرحمة على كل يجي معي ولهم سوء الدار آخر كان النار بالكلية عياذا بالله إلهي بن كما كان كلنا إلهي هينا قبل بعد اليوم طيب سؤال بقى مركع القرآن شبهات كستوك وصا أرورت ولا أوذية سؤال بقى قف كستوك من كرتا واي ما أنت ضدك حق محا هوست مريي ضدك باطل كان كرك مريي ضدك باطل كيجا ما أنت نقل عقبة سأشا جوابتي واتم دغيسن الله الله يبسط وفدنيا الرزق وفدنيا لمن يشاء وعدو دون مؤمن يا كافر اهل الحق يا اهل الباطل لبضوا ويقدر وكعدوريا لمن يشاء وعدو دون اهل الحق واهل الباطل لبضوا مساله الرزق حق يا باطل كما حدنا من حق كتاغن برزق الله بلارينيا mid baadilka ku taagan baa risqa loo ballaarinaya mid xaqa ku taagan baa risqa lagu ciriiriyay mid xaqa ku taagan mid baadil ku taagan baa risqa lagu ciriiriyay haw malaynina gaalo dhan inay wax wada haysato qaar baa waqtigu xalaaliye mas'alatu tawsii'u rizqi kuma xidna xaq iyo baadil walidalika waxa la yiraahdaa in allaha adduunyada yu'ti man yuhibbu wa man la yuhibbu الدنيا إلهي مدو تشعلي يمدانو تشعلي بوسية لكن دينتا مسية إلا قفو تشعلي مويان يكو هدين قال عقها يستا يكو هدين هكو كتسمي ولذلك بالقرآن كما يلك لنا لنقول شيء كاللغو يرعي اليوم ربي أكرمن كالله بلاريا كي لغو اليوم ربي أهانا لا ما هسدا إلهي وحده سبحانه وتعالى هضبا سدا مركي تهي وفرحوا كوي باطل كتاغنا لو بلار شيء وفرحوا وحي كفرحين بالحياه نرشي بي كفرحين الدنيا هو سيسي قابنيد بي كفرحين لو بلاريي ومالك لغو سيي وملكك لغو سيي وعافيماتك لغو سيي بي كفرحين فرح بطر بي علماء يراهدان وفرح كبير وقوقه وكبيرسين حقي بديتين وما الحياة نرش معها الدنيا هوسيسة إيجابا في الآخرة في جنب الآخرة آخرة مركلا دنع دقو إلا مويان متاع وراحة ولذلك آخرة مركلا تقو وحل حديثك صحيح عكو السوغان كي أقول نعمة بضنا لكن أهل النار يلا سوق بني مركاسا هل نار تصيدا لو يرقلنا يا شوق سالقصة صارية سأشل ويديني وامحي هل رأيت خيرا قط ولي خير مارك فيقول لا هل مر عليك خير قط خير ما كصامر ولي فيقول لا محكو إلا بمتاع الديوردن هل مر النار لتشقسي فكيف إذا مكث هدون قادان سدوي لي الدنيا هي آخر إسبربر لي متاع الدنيا وقليل قليل كالله كسيين سيدا درت العلماء waxay yiraahdaan adduunyada waa halkay oran jireen ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع في رجل محاك وناكسن دينية الدنيا هل ننكو كلانت وانين إلهي مالسي وانين إلهي دينسي الله وعنا مركي لبدا سقفك كل ما تصالنا أبو بكر ونسوق هذا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع في رجل وما أقبح الكفر والفقر في رجل ما أقبح الله فالحما قال لما هي فقر منكم كله دنيا وكفقير دين وكقال waxa ugu fiican ninka Ilaahay diintiina u toosiyo dunyadiina uu badiyo gacantii baa loo geliyay
markaasoo adduunyadiina halkii ilaahay raalli ka hadhigay ilaa la aakhiro waxa tartamaya ahlu dusuur iyo ahlu faqri markaas ahlu dusuurkii baa dheeraynaya waxa maalkii baa wuxuu keenaya baab aanay gaari karin sadaqaadkii ay bixinayeen iyo xasanaadkii sameeyeen marka waa ku asxaabta ashkato yaa rasuulallah dahaba ahlu dusuur bil ujur ajarkii bay la tageen insha Allah iyadoo faahfaahsanna meelaheeda ka raajaca ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه markaynu halka kaga baxno insha Allah labadii fariiqi xaqa iyo fariiqi baadilka labadii halka markaynu kaga baxno wuxuu Ilaahay nooga waramayaa qoladii gaalowday sida ay inoogu xidhayaan canaadkooda aayado mucjisa ay ugu xidhayaan ويقول waxay ku oran doonaan rasuul Allah waxay ku leeyihiin alladina kuwi kafaru gaaloobay waxay ku oranayaan lawla ay halla maxayba unzila alayhi rasuulka loogu soo dejin waaye aayatun calaamad oo mucjisa min rabbihi xagga rabbigi oo lamida midla aayat rusul saabiqa aayaadkii rusushii kore ee ka horeysay sidii u shii nabi Muuse ee marna maska noqonaysay marna u shii noqonaysay iyo wixii lamida قل واحد كنت هذا أدو جوابته إن الله ألا يضل ولميا من يشاء عدو دونه ويهدي وهنونيا إليه حقي سمن أنابا كأوصل لابتنا أو توبتك أن الله وهنونيا قل كل إن الله ألا يضل وبادينيا من يشاء عدو دونه ويهدي وهنونيا إليه حقي من أنابا عدي أوصل لابتنا إلهي وهنونيا وأيك أوصل لابنيا نعتي يدنا كدي الذين وكوي آمنوا إله رميي وتطمئن أي كدجيسي قلوب أي كحسليسي أي كقبوبيسي قلوبهم قلبياشود أي كقبوبيسي كدجيسي بذكر الله الحسكيسا أي كحسليسي الله هو ياي بذكر الله الحسكيسا أي تطمئن كدجتا القلوب قلبياشو الحسكيسا أي كدجتا ما كالذين آمنوا يجب على صفينيا الذين آمنوا كوي إله رميي وعملوا السمي الصالحات أعماشا وناكسا ضوبا لهم وحاوسقناتي ضوبا وناكبا لهم إيغا أسقناتي وحسن مآب إيا ميل لو نقضو ميشا وناكسا با أسقناتي oo wanaagaas muxuu yahay ilaahay farax buu siinaya mataac buu siinaya jannu dejinaya illa waxa jannada yaala lama koobi karo ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar halkan marka ay culimadu ka hadlayaan waxay yiraahdaan shay waliba marka nicmada illa ku siiyay nuqsaan markay gasho nuqsaanta waad ku garanaysaa waxa ka maqan way halka Soomaalidu ka tiraahdaa nicmada waayistaanka lagu gartaa tusaale araga isha waxba lagu arkaa isha qiimaheedu wuxuu soo baxaa markay arag leedahay waliba aragu uu dhameystiray ila arag laftiisa marka qaar kood way naga muraayada xidhano inaga dhiman yahay dhegta waa nicmo wuxuu soo baxaa markay maqalkiisaan yahay ee aan dhagoole ahayn qalbigiina goorma nicmadiisii soo baxdaa qalbigana waxay nicmadiisu soo baxdaa marka ilaahay hanuuniyo ee iimaan dego ee iimaanka uu ku dego ee ilaahay uu xuso ee xuska uu ku dego ee ilaahay uu jeclaado ee maxabada uu ku dego ayaa qalbigana sida isha araga ugu soo baxo baa qalbiguna wuxuu ugu soo baxaa وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب محسوس كواد قرانيسا قف ولبا هيه قف بلدم سو جوجي halka oo waxba arkay maanta haduu adduunyada dhan haysto leeraa arag maalka intaan leeg iyo aragkeeba dooran lahayd aragu dooranaya qof dhagala soo jooji xoolaha iyo dhagaha ayaa dooranaysa dhaguhu dooranaya maqalku dooranaya haye qalbigu haduu xidhmo dam إلههم بفور كرا يهدي من يشاء ويضل إليه
ويضل من يشاء عدو دوننا إلهي وبادين إلهي كو حنونيها إنك ييرو ولذلك waxaa la yiraahdaa u fiirso qalbigaaga markaad ka dareento xasilooni maxabada Ilaahay iimaankiisa jacaylkiisa salaadii cibaadadii subhanallah Aisha markay rasuulka ay asxaabadu ka yaabeen sida qalbiga rasuulku uu dhadhansanayo dhadhan ee waxa carabku faa'iidada ugu weyn waa laba waa hadalka aan idin la hadlayo iyo markan wax cunayeen wax cabayo wax dhadhaminay macaan baad dhadhaminaysaa qaraar baad dhadhaminaysaa dhanaan baad dhadhaminaysaa dhanaanka hadii la waayo dhadhankiiba aad weydo nicma meeshii ka baxday hadalkii hadaad weydo nicma meeshii ka baxday كذلك قلبه وحبنته وقال سنة شركة وحو كدجيا وبذكر الله وما سأش أينو أبا عني ما أنت إنه تركيسنه أو صلاة ده شيخ إنه تجنيه ذاتك بديدي سوي كراهية سنة منا هاي إنه كراهية سنة وحين هيدنا إنه معان سنة اطمئنان القلب إنه كهل إذا رتنا إنه سوي شيء في عن شيخ والله عبنا يا سر سعد وديري ودركم محو مشكله ليهي وقتي كلا ميل كلا وين كل منينا اطمئنان كان يحصل ددن كان اي نغا مقن معانka يعني رسولك markuu agaha barari jiray baa leeyahay taagnaan sidoo taagay sar ya rasuul maxaad iska dhibaysaa soo kii ilaahay dambigaagi iyo kaagi horaba dhaafay afala akunu abdan shakuran buul hadii ilaahay dambigayga dhaafay ana ma hadnaqay maxaanu mahadnaqo ووحيابها قال يا لو كلا ديرني إلهي كوا هي نجيله سبحانه وتعالى ضوء لهم وحسن المآب تأهرين كحرينا كذلك سدا صوكله كذلك أي كما أرسلنا سدا نؤدري الأنبياء من قبلك نبي يدي عليك كاهري سلم مذا أرسلنا كبانو كودرني في أمة بانو كودري قد خلت أي تكتي من قبلها أمة هرتين أمة أي هرتين عاو معني قرآن ما شاء الله مناسبة قرآن أخرس كيس تأثير كيس ونقول بذي عاو لتتلو محانك وقدرني لتتلو إن تكو أقرضه عليهم دشوا ذي إن تكو أقرضه الذي كي أوحينا أن كو وحيوني إليك كركاغ أن كو وحيوني وقرآن كي والحال هم إيجونا يكفرون أي ككفريان بالرحمن الله الرحمن كأي ككفريان ساعة التوحيد كويردو قرآن كاسو ويردو قد كد الآخر كوا إلهي ككفريان سيوصل إسلامان قل كده وليبا هو الله ربي جيوي إسقى يصدر وخالقه أبوري إسقى يوحيودي إسقى يصدر لا إله حق لو عبدا مشرو إلا هو إسقى مويانه توحيد كاسو يصدر كاسو يوحيودي عليه أي على الله الله كركي سبحان توكلت تلصارتي وإليه حقي سنغضي متاب أي إنابتي ومرجعي توبت كان كي نقط كي جنوا حقيس سجانو نقنيا سجانو لابنيا عقيدة سجانو توبت كينيا مرجعهن سجانو نقنيا ليه هرجوجيني وحيgaas la ii waxyo saad hadalka ugu tiraahdo ayaan kugu diray maanta quraanka way naga akhrisanayna walillahi alhamdu bal hadda wada u fiirso quraanka dadka lagu akhriyayo waa dadkan leh لولا أنزل عليه آية من ربي وهلا أنزل ما لقوا سودة شيء آية من ربي القرآن بابا لما قلت الأخرية آيات القرآن كوينة أدوني سوامح مركا القرآن كي مركا لقوا أخرية يو حالة بيكون سجين حالة سوامحي وهم يكفرون بالرحمن iyagoo wahum quraanka lagu dal akhriyo oo xaaladda ku sugantay ay tahay wahum yakfuruuna birrahman bay'anaat iyo istihzaa waxay u codsanayaan aayatan ukhra aayad kale ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه هيا إلهي بهداية هيا ضادنا الله هيا aayadaha quraanku markay waxba ka bedeli waayeen ma mid kale wax ka bedelaysa aayada ay codsadeen looma bayrine bal quraankan iyo taasiirkiisa ayuu ilaahay ka waramaya qaala taala ilaahay xuri walaw hadii wana meelaha inuu baahanay walaalayaal inaan ku tadabburo sida gaaladana loogula hadlay inagana leeynu hadlaya walaw hadii lawda jawaabteedii way maqan tahay anna quraanan
أن قرآنا أن وتنصب الاسم وترفع الخبر أن قرآن سيرت لغو سعودسين لها به أي بالقرآن قرآن كسبب تيسا الجبال بورها أو أمس قضعت لغو ترتري لها به أي بالقرآن قرآن كسبب تيسا لغو ترتري لها يتلاوديسا الأرض دولك وبهولا لغا قد الله لها وريقك لغا غد لها أو أمس كل ما لغولا هدي لها به قرآنك الموتى ددك دنتا والله صون نوليه قرآنك لغو صون نوليه جوابتي لو way maqad laba shay bay culimadu u xadfaan u qadaraan jawaabta labada shay waxaynu tarjiixinaynaa ta qolada luqada ee i'raabta ay tarjiixiyaan oo ah lowdash hadii jawaabteeda kalaamku tusaya saabiq yahay kaasa loo soo qadara oo waa maxay marka quraanka nabi maxamed uu ku akhriyayo litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka saad ugu akhrido kuwan kugu waxyoonay ayaa leeyahay xaaladay ku jiraan wahum yakfuruna birrahman waa maxay marka kaasaynu ka qaadanaynaa jawaabtii lowda لا كفروا بالرحمن قرآن كإنسان كو آخرنا القرآن كعجائب كتأثير كيسا وحن كمذا ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تأثير كيسا وحن كمذا هدي لا أقري بوره ودقاق الهاي هدي لا أقري دلكو دلدلاعنا haddii la akhriyo oo amwaada lagu akhriyo intay soo taagaan bay noolaan lahayn laakiin sida ilaahay ma doonin kuwan lagu dul aqriyo quraanka ta'fiirka keenayay la kafaru birrahmani rahmaanka ka kufriilay tafsiirka labaad ee loo qadaraa jawaad waa maxay لو لكان هذا القرآن هدي القرآن وحيالي لها سيدا سمين لكان هذا القرآن كانوا نقولها لكن كهراء أيين ترجيحنا لكفروا بالرحمن رحمن كيك كفره الآية هرنا وينوصى مري سورة أنعام ولو أننا نزلنا إليك عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله jawaabtii waad haysaa mar hadii sida ay tahay la kafaru birrahmaan allah rahmaanka ka kafri lahaayeen la yiri maxaa ilaahay yiri marka bal iska dhaaf rasuul allah waxay ku weydiisanayaan oo aayad ma naloo keenay iska dhaaf lillaahi bay u sugnaatay al-amru taladu jamii'a talada dhamaanteed allah iskale yahdi man yasha wa yudillu man yasha afalam yayas marka haddana qolada ma loo jawaabay inaga haddana liinoo jawaabaya ilaahay kuwa quraanka raacay ta'siirka uu ku keenay halinaga yeelay Allah kuwa naga yeelay inaguna waxaan iska jecel lahay in gaalku wuxuu inaga codsanayo la yeelo si uu soo islaamo inaga marka la hadlayo waxa la leeyahay afalam yayas أي أفلم يعلم يعني أوجين يأسوا هذا وبمعنى يعلم أفلم ييأس أي أفلم يعلم يعني أوجين الذين آمنوا كو إله الرمي يعني أكسونين ألو يشاء أنت ومخفف من الثقيلة أنه أي أن الشأن والأمر أرك يشاء نقول يهي لو يشاء الله هدو ألا دونيو لو يشاء الله هدو ألا دونيو لهذا الناس إنه هنونين لهذا جميع دمانتي ورميدا مؤمنين أكسونين in ilaahay haduu doonayo ma uu doonine dadka inuu wada hanuunin lahaa ma waxa doonaysaan oo u laabtaagaysaan codsiga aayadaha codsanayaan canaadka iyo istihsaaga oo codsanayaan in loo yeelo haduu doonayo ilaahay wada hanuunin lahaa bila aayad laakiin ma doonin qadaan wa qadaran ilaahay ma doonin sidana waa inaynu cilmi yaqiinsanna quraanka qof baad ku akhriyaysaa wuu rumaynaya Allahu a'lam qof baad ku akhriyaysaa ma rumaynaya Allahu a'lam markaasa ilaahay gaala lagu baraya wala yazaalu kanazul maayaan alladina kafaru kuwa gaaloobay tusiibahum inay haleesho bima sana'u ay bisabab sun'igooda awgeed qaari'atun musiibo ku habsata daahiyatun taqra'uhum daahiya garaacda musiibo garaacda oo amase tahullu aadegto adigu rasuul allah iyo ciidankaagu qariiban meel ku dhow min daarihim guriyahooda iyo manaasishooda meel ku dhow hatta yaati ilaa
ka imanayo wacdullah alla ballanqaadkiisa oo ah inuu adigana ifka kuugu nasreeyo aakhirana janno ku dejiyo iyagana la jabiyo aakhirana naar la dejiyo inna allaha allana laa yukhlifu baajin maayo almiicaad ballamaha baajin maayo ficlanna culimmadu waxay yidhahdaan ballamaha caynkan oo dhan ee qur-aanku sheegay way dhaceenoo rasuulullaahi maxamed sulxulxudaybiyana wuu agdegay heshiis bay la galeen sulxulxudaybiyana 2 sanay ku jabiyeen in yarba mamuu sii socon 2 sannadood kadibna iyagii buu furtay أو تحل قريبا من دارهم وسلح الحديبية حتى يأتي وعد الله بلنقات كنو يمي لبا سنة كدبنا وعد إلهي نصر جيبا يمي فتح مكة مكوفرتي إن الله لا يخلف باطن ما الميعاد إلا أبو سفيان عجائبات كهداية الله ذي بلو في رصدا مثال كانت صالين بدون ما نكوع العلن أبو طالب ونبي أدير كيسة بلو إلى دمات بربر تاجنا مرمين إلا لو سودتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أبا سفيان مركي النبي قال له صو صاري إلا فتح مكة سيف له تاجنانا عام فتح مكة إسلام كوب يلا باتن سنضت سيف بوسيتي سنة كي كوب يلا باتنات بإسلام مركا هو إلهي عدو دوني سجاه هنوني هي قاعد تاكله بل لله الأمر جميعا تلضع الله عليه يهدي من يشاء ويضل من يشاء عد دونهن إلهي حينها نونيو سبحانه وتعالى ولقد استهزئ والله بان كدارتي لقد استهزئ سعاشه maxaa keenay aayad ma la siiya maxaa keenaya waa istihzaa yaanad wallahi baan ku dhaartay laqad istihzaa waa lagu jeesay waa lagu dheeldheelay birasuulin baa lagu dheeldheelay min qablika adiga ka horeysay fa amlaytu waanu kaadiyay lilladina kuwi kafaru gaaloobay ee rususha ku taadheelayay ilaa mudalla daayay thumma kadib akhadtuhum waan qabtay waan ciqaabay fa kayfa kana sideebay noqotay عقابي إياهم عقابتي أنا يجي عقاب سلامة ترترين أين قوم نوح ما يكوي كدم بي ملا أيضا كوي يقول عمي أنا كداي لو أيضا أن صفحت ون جلس كارسية مشكلة ملأ لبضع أيضا دي سجى صبرا هل كآيو أفمن ممد هو إساقو قائم قائم وحال لبا معنى القرآن كوجو جرتا لغة العرب قائم وقف تاجن وحكى صور كذا معي قاعد هل كان معناها إلهي وكنا سهيو كنكم جرت معناها مسكعنا جنين متاجن فردي بقى صور كذا ماي قائم ومحي وقف كالشقة يتولى أمور كلام معمولية أفمن ممد هو إسقو قائم التاجن معمول maamul buu taagay waa alle khalqiga intuu abuuray faraha kama qaadin sida dadka qaar kood i'tiqaadsan yihiin la qaa'im talu taagan yahay ya maamul iyo tadbiir ala kulli nafsin nafda maanti oo min al-anfus kamida maamulkeedu taagay bima kasabat waxay kasbatay وأرساقيا وأبوريا ونسيحنيا وتوسنيا ونولينيا ودليا عمل حمو حسمية ولو قريا كي ونكسنا حسنا لو بدليا كي حما سيئة تلاذا صعدن ياله كونك تلاذا كسعته وتلاذا يابله الله قائم ومعموليا ما تسقط من ورقة تلا إلهي بيكون سعته على أن ما صعد عيسى تلا الله يكون عيسى مكاه هي خبرك ولا حدفي كمن ليس قائم يولم يمد عن قائم هاين بل عاجز عن نفسي عاجز كمن ليس قائم بل عاجز عن نفسي سوى عاجزة اسكداين وحمام ولا يسقف أنا سمعمول الكريم لبدا سمي هل يستويان لا إلى خلقه يعلن معموليا iyo mid makhluuq ah oo naftiisa caajiz ka yimaysay kaman laysa qaa'imun bal huwa caajizun markaas ilaahay yiri waja'alu waxay u yeeleen istinaaf ka dhig waja'alu waxay yeeleen lillahi alla waxay u yeeleen shurakaa ilaahay la siman qul kudde samuhum warbal magacaaba ilaaha labaad ee qaa'imka ahi waa kee ilaaha labaad ee qaa'imkii waa kee ما تشرو أم إسكت داف
hadalka hore ka soo wareeg bal ka intiqaal atunabbi'una ma waxa u sheegaysaan hu alla ma waxa uga warramaysaan bima ba uga warramaysaan la ya'lamu aanu ku ogeyn fil ardi dhulka ma ilaah labaad ba dhulka jooga leedin oo ilaahay wax la maamula oo qaa'ima oo dhulka jooga ma kaasa ilaahay uga warramaysaan am bizahirin min alqawl marka amta dambe waxaad ka dhigtaa idraabiyadii kaliya bal iska daaye bizahirin min alqawl ay bibatilin min alqawl wa hada albadil ahu haq darra ilaha labada sheegaysan waa hada albadil بل اسكداف هدنا انتقال لباد ويه زينا ولو قرحيه للذين كوي كفروا قالوا بي مكروهم دغرتودي او قالنمدا يا شركيغا وسدوا ولا ليخيه عن سبيل طريق حق التوحيد كان لغا ليخيه لا اله الا الله ولا دوي ومن يضلل الله منك الله بادينا فما له مسغنا من هذه العلهن ونيسا والله اعلم صلى الله على محمد